السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داوديال meel walba joogtaan waxaan idin leenahay ku soo dhawaada barnaamijkeena faaqada ciyaaraha. barnaamijkeena faaqada ciyaaraha maanta waxaanu ku soo qaadan doonaa qodobo dhowr ah oo ay ka mid yihiin koobka Afrika ayaa furmay iyo waliba kulamkii ugu horeeyay kooxda markaasi ama xulka Morocco ay martigelinayeen. isla koobkan ayaa markaasi xalay Morocco ay badisay lugteedii ugu horeysay iyo kulankii furitaanka maadaama ayadu ay martigelinaysay koobkan sanadkan 2026 koobka ay markaasi martigelinaysay kooxda ama xulka dalkaasi Morocco. sidoo kale waxaan sheegi doonaa barnaamijyadeena ku soo qaadan doonaa kulamadii laga ciyaaray Premier League, La Liga iyo waliba Serie A dalkaasi Italy oo inta badan ba markaasi ay ciyaarayeen isbuucan. sidoo kale waxaanu markaasi faaqidaadi doonaa kulanka xalay Barcelona ciyaartay ee kooxda Villarreal la ciyaaraysay oo 2-0 ay ku badisay. Barcelona ayaa iyaduna sii hoggaansanaysa ama hoggaanka sii dheereysatay dalkaasi Spain ee La Liga horyaalkaasi ayadoo Real Madrid kulamadii ay jeefatay isla markaana lagu canaantay oo la tusay in markaasi kulanka El Clasico ay badisay wixii ka dambeeyay iyo waliba kulanka Chelsea markii ay Barcelona championka la dhashay wixii ka dambeeyay badiskoodaba macalinka oo sheegay in markaasi uu wax weyn ka bedeli doono kooxda Barcelona si guulo fara badan oo isdaba joog ah ay kooxdu gaarto. haddaba salahan markii ay Real Madrid ay markaa badisay haween hore isla markaana waxa la sugayay ama laga dhirsugayay Villarreal inay ku dhigi doonto kooxda Barcelona laakiin way suurtagali weysay inay ku dhagto kooxda Barcelona kooxda Villarreal oo markaasi xifaaltan xoogan kala dhaxeeya kooxaha Liga ka dheela oo tunkooda ugu tunka weyn sida Real Madrid, Athletic Bilbao iyo Atletico Madrid iyo waliba kooxda Barcelona. haddaba si walba ay ahaataba Barcelona ma laga yaabaa December-tan markii laga baxaa inay ilaa January ay sii hayso hoggaanka dalkaasi Spain La Liga laga dheelo. horyaalka La Liga ayaa markaa haddii ay sii hayso waxa la leeyahay ilaa January in markaasi ay suurtagal u noqon karto in kooxda Barcelona inay ku guuleysato horyaalka sanadkan. haddaba sidoo kale aynu ku soo qaadan doonaa qodobkeena xiga ee kooxda Liverpool ciyaaryahankeeda afka hore kaga ciyaara Isaac ayaa waxaa la soo warinayaa in dhaawaciisu yahay dhaawac u daran oo ilaa iyo markaasi dhowr bilood maqnaan karo sida la sheegayo. weli laakiinse qolooyinka caafimaadka ee kooxda Liverpool weli ma aysan xaqiijin waqtiyada ay markaasi oo maqnaan doono sida rasmiga ah laakiin waxa uu la sheegay in weli markaasi dhaawaciisu yahay mid aan fududeen oo kulankii Tottenham oo la ciyaarayay dhaawac looga saaray. haddaba Isaac ayaa ah ciyaaryahan markaasi lacag aad iyo aad u fara badan lagu soo gatay lacag 150 milyan oo euro gaaraysa waxaana markaasi ay ka soo gateen kooxda Newcastle asigoo markaasi sanadkan oo aanan wax gool ah iminka dhalin markii laga reebo hal gool oo isbuucii la soo dhaafay oo dhaliyay. haddaba Isaac waa uu la qabsan lahayd kooxda Arne Slot oo wato hogaaminayo waliba waxay markaasi suurtagal u noqon weeday inuu markaasi la qabsado kooxdaasi afka hore ciyaaryahanada ka dheela in markaa ay banooni siiyaan Isaac. haddaba Isaac sida lagu yaqaan wuxuu ahaa nin gadaal u soo degta isla markaana kubadaha dhaxda ka soo jiita ka soo raadsada isku daya in 2 ilaa 3 ciyaartoy u gambiya ka farsamaysta xirfadiisa ciyaareedna markaasi kula taga ilaa afka hore ee goosha. hadda waa ay suurtagali leedahay xitaa inuu taa uu sameeyo. sidoo kale Victor Gyökeres markii aan ku soo qaadano Victor Gyökeres ayaa inta badan ba kooxda Arsenal asna ku dhiban si uu gool u dhalin lahaa. Victor Gyökeres inta badan waxa uu dheeli jiray gadaal ayuu soo degan jiray kubadaha asiga ayaa soo doonan jiray marka hore 1 ilaa 2 asna sidoo kale waa u farsamaysan jiray kadibna wuxuu isku dayay jiray inuu gool dhaliyo waana sababta uu ku dhaliyay goolal gaaraya ilaa iyo 102 gool 2 xilli ciyaareed oo la isku daray. haddaba ciyaaryahankan waxaa dareemaysaa kulankii Everton habeen hore ay dheelayeen kooxda Arsenal guusha u dhaliyo rigoorada ahayd ama يعني ciyaarta qaabka u dheelayay sidoo ugu baahi qabay ciyaaraha laga keenay set piece-ka kubadaha laga keenayay
siduu iskugu dayay inuu markaasi qaato laakiin waxaad moodaa kooxda Arsenal inay ka dansan tahay ciyaaryahankaas qaabka ay u qoodi lahaayeen kubadda ciyaaryahankaas Bruno lama siiyo Bukayo Saka waa soo socdo dhag wuxuu isku dayaa asiga laba mar dhag markuu gambiyo dadka inuu asigu markaasi kubadda u laabo oo asigu ka doorbido inuu asiga markaasi shuudo oo goosha ku shuudo laakiin haddii Bukayo Saka oo kubadaha oo helo isku day lahaa inuu markaasi ku qoodiyo ciyaaryahan Victor Gyökeres ama Lok oo geeyo kulay waa taqaanaa wuxuu yaqaanaa waa ninka ugu loobka fiican Premier League markii la yiraahdo Bukayo Saka sidoo kale ciyaaryahankan Martinelli markiisna uu kubadda oo helo haddii Lok oo geey lahaa oo dhanka sidbiiska ciyaaryahanka waa hilla kubadda fara badan saaxiibayaal barnaamijkeena faaqadaada ciyaaraha ee Saka inta ayuu nooga egyahay fadlan haddii aad nala soo gaartay ilaa dhamaadka barnaamijkeena hadduu ku qanciyay fadlan waxaan ka codsanayaa inaad like-ta iyo comment-iga inoo saarto oo like-ta noo saarto comment-igana qaybta hoose aad noogu soo dhiibto haddii aad horey noola joogtay fadlan waxaan ka codsanayaa inaad inoo sii share garayso si ay asxaab fara badan ay u gaaraan mahadsanid daawade haddii aad nagu cusub tahay fadlan waxaan ka codsanayaa si sharaf leh aan kaga codsanayaa walaal inaad follow ii dhahdo page-ka ina sii share garayso like-ta iyo comment-igana hanaga ilaabin mahadsanidin assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh waa saaxiibkiin baari oo idin leh assalaamu calaykum